maanta ay ahayd maalinta koowaad ee ololaha doorashooyinka Soomaaliland oo laha xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa waxa uu xisbigaasi dowladtus ka sameeyay degmada Cilafweyn oo ku soo bandhigay xuduudiisa taageerayaasha murashaxiinta golaha deegaanka iyo murashaxiinta golaha wakiilada ee gobolka Sanaag ayaa isugu soo baxay sharciyada waaweyn ee degmada Cilafweyn murashaxiinta golaha deegaanka ee degmada Cilafweyn xisbigaasi ka sharaxanaya si weyn uga dhex muuqday iyadoo ay sidoo kale ka dhex muuqanayeen murashaxiinta kale ah oo u tartamaya golaha wakiilada gobolka Sanaag Salebaan Diiriye Barre iyo Siciid Jaamacade sidoo kalena waxa xusid mudan oo munaasabadaasi kala soo qayb gashay dabaaldegaasi taageerayaasha Farduus Hamashool oo kamid ah mas'uuliyiinta sare ee xisbiga wadani wadarihiisa la soo baxay maanta oo bulshada aad iyo aad ayadana wax loo xusay xisbiga wadani waa maalinta wadani waa la yaqaan wacaan xisbiga ku gaari kara badaabixiisa iyo horiisa iyo doorashada ma jiraba waxaan halka kan waxa yiri lama tagaa guulasamadeeda lama tagaa mid magaceeda lagu tagaa shalay abaar bay ahayd markii xisbiga ku taagnaa maanta waa roob rays baxay ka tahay xisbiga wadani maanta ku dabaaldegayaa waa alxamdulillah rabbi ilaahay baa mahadaas kale maalin kasta ma aha inta gawaadhi loo soo kaxaysto in laga dhex ololeeyo codkoodana la qaato hadhowna aan dib loogu soo noqon anigu waxaan ballan qaadayaa haddaan Farduus ahay haddii xisbigaygu guulaysto aan madaxda ka ahay inaan Cilafweyn wax ka bedelayo oo ah astaanta aan ku faano adduunyada meel kastaan joogo golaha deegaanka maanta idin soo xulay haddaa u codaysaan oo codka siisaan ballan waxaan idinka qaadayaa inaynu la baratano caasimadaha adduunyada ku yaala waa aragtaan shacabweynihii reer Cilafweyn waa iscadeeyay waa xisbiga wadani wuxuu u taagan yahay inuu codeeyo 31 May waa aragtaan degmada Cilafweyn way ka hadlay deegaanadii ay la midka ahayd halkay marayso maanta waa aragnaa waxa kaliya wax ka bedeli kara waxa weeye xisbiga iraadatu shacab ee wadani waxa leeyahay reer Cilafweyn maalin walba been iyo hawo ku jiri mayno xildhibaanadaasna ku wada ka bixinay hawada maanta waa taa indhaheena inoo macallina waxaad ka garanaysaan miisaanka musharaxiintan ay leeyihiin anigana waxay tahay farxad gooni ah maadaama ay musharaxiintu badan yihiin dhalinyaro waxaanu isku dayaynaa inaanu maayirka iyo maayir ku-xigeenkaba u noqdaan xisbiga wadani ee degmada Cilafweyn haddii alla yari ballanteenu waa 311 saal mire Yuusuf qaariyo barwaaqaan idin rajaynaya wixii intii aan joogay waa ogtii wixii duruufo ka dhacay ilaahay baa qadarka ku lahaa alla inaguma soo celiyo wixii noo qabsoomay way qabsoomeen waxaan noo qabsoominna waxaan dhacay wixii dhacay waa ka xunnahay kumana faraxsanin intay ka qayb gashay wax ka soo gaadayna maanta iska qoomameynayaan nadiif baan anu ka nahay ummadaan og intayada nadiif baan ka nahay maxamed jaamac liibaan hindi gaabane intii aan joogay waa ogtii wixii duruufo ka dhacay ilaahay baa qadarka ku lahaa kumana faraxsanin intay ka qayb gashay wax ka soo gaadayna maanta iska qoomameynayaan nadiif baan anu ka nahay ummadaan og cid nagu eeganaysaa ma jirto waa ta koos garaysay waa ta sababtay inaan maanta dib lay soo sharaxo oo la yiraahdo kaama maaranay meesha sii joog waxa ku dadaashaan yaan codkiina baqgaroobin meel kasta joogtaan kaarkiina waa noodan codkiina noodada hal cod baa lu kala foosaya noo ballan qaada inaad sidii hore noo noo siisaan magacay waa Maxamed Siciid Cabdo ka sharax xisbiga wadani lambarkayguna ay 309 waxaan ka codsanayaa dhalinyarada Cilafweyn siiba inay codkaygu siiyaan 309 oo xisbiga wadani ah anigu waxa wataa xildhibaankayga baarlamaanka ugu sidkan waa Jilay Salebaan Diiriye Barre waa nin horena baarlamaanka ku fadhiyay wax badan u qabtay gobolka Sanaag waa xildhibaanka qulay gobolka Sanaag u hadlay maanta waxaan u soo sharaxnay inuu gobolka Sanaag u hadlo inuu dhalinyarada bila shaqaalaha hadlo inuu wax badan dhalinyarada ka bedeli doono dhalinyarada inay maskax cusub aanu ku soo kordhino Cilafweyn inaanu samayno waa aragteen berbera iyo Gabiley iyo systemka wax looga shaqeeyo golaha deegaanka uu shaqeeyo waad la socotaan waa 305 Cabdillaahi Yaasiin Cali waxaan jeclahay inaad noogu boobi doontaan insha Allah anigu codka saan idinka doonayo waxaan codka si lamida iyo si ka badan u doonayaa inaa ugu hiilisaan si uu inoogu noqdo xubinteena baarlamaanka xildhibaan Siciid Jaamacade inaa xoog u siisaan codka oo u soo saartaan waa xildhibaan gobolka Sanaag oo dhan u sharaxan min ilaa koone anigu waxaan ahay xildhibaan Axmed Ibraahin Aadan waxaan doonayaa inaad maanta codkaygu taageertaan iguna soo saartaan lambarkayguna waxa weeye 30
302 weeye lambarkayguna aad iyo aad baan idinka mahad celinayaa waxqabadka wixii ilaahay nala garto wixii ilaahay noo diro ilaahay noo garto ayaa waxaanu idiin qabanayno markaad la soo saartaan ee codkiinana siisaan ayaanu idiin qabanaynaa hubsado xusbiga wadani in la soo saaraa baa la rabaa kidiinaynu wadani noqontanaa baa la doonayaa degaan ahaanta degmada reer ceelafweyn waxaan kula talinayaa ha la taageero xusbiga wadani bedel baynu samaynaynaa aynu samaynayno waxaynu ka doonaynaa xusbiga wadani bedelka waxaad ku samaynaysaana waa fartaada maxamuud cabdi barre honkebel TV Celafweyn.